السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحاب سود وهذا أصحابته waxay noo socday casharadeenii taxanaha oo ka hadlaynay fiisiga dugsiga sare ciwaankiisa furus waxa aynu ku wadi jirnay asxaabay casharkeenii lixaad baynu isla fiirin doonaa maanta hadaba asxaabay waxaanu casharkan isla fiirin doonaa ciwaan weyn waxa weeyaan fiisiga markii laga hadlayo aad muhiim u ah sidoo kale waxa uu muhiim u yahay gabi ahaan ardayda wax weeyaan ku haaminaysa engineering inay barato ciwaankan waxa la yiraahdaa xabi maanta waxa weeyaan equilibrium waa maxay waa shaygu inuu yahay shay aan dheelinsanayn dheelle uusan ahayn hadaba asxaabi equilibrium markaynu ka hadlayno sidoo kale waxaanu ka hadli doonaa maanta center of gravity waxa la yiraahdo yani equilibrium markaynu ka hadlayna labaynu ka hadli doonaa mid waa maxay waa center of gravity midna waxa la yiraahdaa stability labadaas muhiim maanta wax weeyaan inoo ah oo aan isla fiirin doonaa haduu Ilaahay qadaro hadaba asxaabi equilibrium marka aan leenahay physics maxaa lagu yaqaanaa equilibrium yani physics marka lagu leeyahay shaygaas waa equilibrium macnaheedu maxay tahay marka asxaabi equilibrium physics waxa la yiraahdaa waa condition of a system when neither its state of motion nor its eternal state tends to change with time waxa la yiraahdaa asxaabi waxa la yiraahdaa waa xaalad taasoo xaaladaas waxa la yiraahdaa shayga motionkii socodkiisii iyo internal energy-giisii gudaha energy-gu ugu jiray aysan isla bedelin time-ka baa waxa la yiraahdaa equilibrium baa la yiraahdaa yani waxa la yiraahdaa shayga kan hadii waxa weeyaan motionka uu soconayay ama internal energy-giisa oo ku kaydsanayd labadaas time-ka ay isla bedeli waayaan oo wax saameyn ay ku yeelan waayaan waxa la yiraahdaa shaygaasi macnaheedu waa equilibrium way hadaba asxaabi anagu equilibrium ka hadlayno laakiin waxa rabnaa maadaama secondary aynu joogno waxa rabnaa inaynu ka hadalno laba waxyaalood oo kaliya ta koowaad waxa la yiraahdaa center of gravity ta labaadna waxa la yiraahdaa waa stability hadaba center of gravity ka asxaabi laftigiisu ka hadlamay laakiin waxa rabaa inaan hints yar idinka siiyo center of gravity ga yani maxaa laga wadaa asxaabi center of gravity ga waxa la yiraahdaa shay kasta xuduntiisa la yiraahdaa tusaale ahaan oo kale bini aadamku xudun buu leeyahay xuduntiisa macnaheedu waa maxay waa centerkiisii weey waa markaskiisii weeyaan hadaba asxaabi center of gravity marka arrinaa shay center of gravity aanu soo xisaabin laba qaabad baa xisaabinayna qaybta koowaad waxa weeyaan shayga aanu xisaabinayna molecular ba shay qaab lamiya mise shaygana waxa la yiraahdaa waa irregular hadaba asxaabi shayga aan xisaabinayno hadii irregular uu yahay yani waxaan isticmaal bay formula baan isticmaalnaa shaygaasi center of gravity waan la soo baxayna hadii asxaabi waxa weeyaan shayga kan irregular uu yahay uusan qaab lahayna by lines baan isticmaali doonaa okay tusaale aynu soo qaadano iyadoo aynu xisaabinayno shay regular tusaale ahaan oo kale waxaan la soo baxay x iyo y markasta waa muhiim markii la xisaabinayo center of gravity giisa fiiri markaas waxaan yiraahday halkaas waxa ku sawiray tusaale ahaan oo kale halkaas waxaan ku soo sawiray rectangle baan ku sawiray halka tusaale rectangle weeye shaygaas rectangle ka tusaale ahaan oo kale halka waxa uu yahay 4 meter halkana waxa uu yahay wax weeyaan 6 meter buu yahay afwan halkan waa 6 meter buu yahay hadaba waxa raba asxaabi shayga kan inaan soo saaro center of gravity giisa raba inaan soo saaro yani boxkaasi waxa raba center of gravity giisa maadaama uu regular u yahay inaan soo saaro see ku soo helaysaa x taada qiimaheeda waynu soo qaadanaynaa laba inuu qaybinaynaa oo waxa leenahay 4 meter baa waxaan u qaybinayaa labo macnaheedu waa maxay waa 2 meter 2 meter kana 6 meter weeyaan waxaan u qaybinayaa laba waa 3 macnaheedu waa maxay shayga center of gravity giisu waxa uu noqonayaa kan kala barkiisa halkaas iyo kan kala barkiisa halkaas macnaheedu waa maxay
shayga kan center of gravity giisu halkaasuu noqonaya c baynu ku qoraynaa waxaynu ku qoraynaa c g oo ma laga wado center of gravity c g giisu halkaas weeyaan tusaale shape kale aynu soo qaadanaynaa tusaale ahaan oo kale halkaa waxaa lagu sawiray triangle baa lagu sawiray tusaale ahaan oo kale triangle kaasi halkaa tusaale ahaan oo kale waxa uu leeyahay tusaale ahaan oo kale 6 baa halkaas uu yahay tusaale ahaan kana waxa weeyaan 3 buu yahay haddaba waxa la yiraahday wax xisaabisaa center of gravity giisu ma wax oranaya soo qaado laba u qaybi waa khalad ma ahan yani waa maxay shay kasta formula gaar ah oo center of gravity giisa lagu xisaabiyo buu leeyahay haddaba maxaynu soo qaadanaynaa kanaynu soo qaadanaynaa triangle maadaama uu yahay 3 baan u qaybinayaa macnaheedu waa maxay waa 1 6 baan soo qaadanayaa 3 baan u qaybinayaa macnaheedu waa maxay waa 2 يعني waa maxay x to 1 iyo y-da oo 2 x to 1 macnaheedu waa iska meelahaas oo kale kana oo 3 oo 2 ana meelahaasi tusaale ahaan oo kale shayga center of gravity giisi meelahaas u dhacaya yani shay kasta waxa uu leeyahay asxaabay qaacido lagu xisaabinayo uu leeyahay waa maxay triangle-ka maxaa lagu helaa b oo loo qaybiyay 3 h oo loo qaybiyay 3 baa lagu soo helaya yani waa maxay shayga tusaale ahaan oo kale haduu yahay rectangle haduu yahay maxaa u qaybinaysaa isagana waxay xisaabinaysaa waa maxay base-kiisa oo u qaybinayso 2 height-kiisa oo u qaybinayso 2 system noocaas asxaabi wax weeyaan baynu ku tabaqaynaa waa center of gravity-geeda intaasi waxaan uga gudbayaa marka uu yahay regular ay formula aan isticmaalayno haddaba haddana asxaabi waxaan isla fiirin doonaa shaygu hadduu irregular uu yahay tusaale ahaan oo kale dhagax noocaasa baa la yiraahdaa waxa soo xisaabisaa center of gravity-giisa maxaa sameynaya lines baan isticmaalaya kanaan soo qaadanaya saa u marnaya kanaan qaadanaya saa u marnaya mid baa saa u marnaya mid baa saa u marnaya mid baa saa u marnaya 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 saa ugu dambeynta waxaan heli doonaa meel gabi ahaanba laymanku ay iska jiraan meeshaas aan wax leeyahay waa center of gravity ka shaygaas inta asxaabi waxaan ugu gudbayaa center of gravity gan ugu gudbayaa videogana waxaan rabaa aan muhiimadda koowaad inaan saaro anigu stability-ga yani shayga kan uu xasiloon yahay yani tusaale ahaan oo kale waxaad arkaysaa miis baa alaab la saaraya waxaa leedahay hasaarin sababtoo ah wuu dhacaya mar waa dhib ma leh saar dhici maayo baa maqlaysaa haddaba waxaa is weydiin leh waay waa dhacaya mar u leedahay marna maxaa u leedahay dhici maayo aan isla fiirino marka haddaba asxaabi waxa la yiraahdaa stability-gana markaynu ka hadlayna 3 baynu qaybinayna mid waxa la waa stable waa kan oo kale fiiri dhici maayo unstable macnaheedu waa maxay shaygan haddii la taabto waa u dhacaya yani waa maxay neutralku macnihiisuna waa maxay shaygan waxa weeyaan waa shay si kasta oo loo dhigo waa caadi wax saameyn oo isbedelaya ma jiro intaas asxaab waxaan filayaa inaynu isla fahanay baan filayaa haddaba aan isla fiirino marka stable maxaan ka wadaa marka asxaabi markaan leeyahay shaygan waxa la yiraahdaa waa stable macnihiisu waa maxay stable asxaabi waxa weeyaan is when slightly displaced markii xogaa yar position-keeda ama displaced lagu sameeyo booskeeda laga kaxeeyo and then released kadibna waxa weeyaan meeshiisa lagu soo celiyo itanis waxa ku soo laabanaya to previous position-kiisa ku soo laabanaya fiiri qalikana waxa la sameeyo xogaa yar baa waa maxay يعني هو slightly displaced baa lagu sameeyay xogaa yar baa position-ka laga kaxeeyay waa la sii daayay qalinka meeshiisa ku soo laabanaya sababtoo waa maxay center of gravity-ga CG-giisa wax leedahay baacad markaas shaygaas waa maxay stable buu noqonaya saada dhahdo isla markii uu soo laabanaya يعني stable shay kormo asxaabiya stable wuxuu yahay shayga asxaabi horta kow center of gravity-ga na maamulaya ama stable ahaado يعني waa maxay unstable ahaado neutral center of gravity-ga ina maamulaya center of gravity-ga waa isla fahanay waa meesha culayska uu ku dhacayo bini aadamku center of gravity-giisu waa xagga waa xudunta say la adiga shay kasta wax uu leeyahay center of gravity uu leeyahay يعني waa maxay culayska dhan meesha uu ku dhacayo weeyaan يعني waa maxay hadda fiiri qalinkaasi xogaa yar baa la stable buu noqonayaa macnaheedu waa maxay xogaa yar baan position ka kaxaynayna waa sii deynayna uu ku soo laabanaya maxaa dhacay center of gravity-giisa meesha saxda ahayd yaala center of gravity-giisu shaygaasi meeshii loogu talagalay ayuu yaalaa kaasi asxaabi waa nooca koowaad ee la yiraahdo stable nooca labaad asxaabi waxa la yiraahdaa waa unstable unstable weeyaan macnaheedu waa maxay kormu shaygu unstable noqonaya asxaabi waxa uu noqonayaa when slightly displaced markii xoogaa yar position-keeda laga kaxeeyo oo booska laga qaado and then released kadibna la soo celiyo it doesn't return kuma soo laabanayo to this previous position-kiisii hore ma ku soo laabanayo tusaale qalinka fiiri center of gravity-giisi waa ka fiiri xogaa baa laga leexiyay center of gravity-giisi toos ugu dhici maayo fiiri position-ka fiiri center of gravity-gi toos ugu dhici maayo center of gravity-ga xayay ku aadan yahay meel cidla buu ku aadan yahay soo ma jeedo meel cidla buu ku aadan yahay
that means shaygan waxa la yiraahdaa waxa uu noqonayaa shay unstable buu noqonayaa saxaabi shaygaasi muxuu noqonayaa shay unstable buu noqonayaa kii hore fiiri center of gravity-giisu waxa uu ku aadan yahay shaygii dhulkii buu ku aadan yahay yani waa maxay qalinkii buu ku dhex jiraa laakiin kan fiiri meel cidla ah buu ku aadamaya saal ajliga shayga uu dhacaya hadaba shayga miiska aan leedahay ha saarin macnaheedu waa maxay center of gravity-giisi baa saxnayn weeyaan oo culayskii meel uu ku ceshado ma lahan yani miiskii pivot-kii ma saarmanayo weeyaan asxaabi waxa weeye nooca saddexaad waxa la yiraahdaa waa neutral yani neutralka micnihiisu waa maxay fiiri wixii abadi shay is in this neutral equilibrium waxa uu yeelanayaa equilibrium neutral buu yeelanayaa if it stays wuna ahaan doonaa its new position where it's placed yani shayga kan asxaabi haddii waxa weeyaan uu center of gravity-giisi si kasta oo loo dhigo ama si kasta oo loo leexiyo center of gravity-giisi positionka haddii aan laga qaadin fiiri qalinkan haddaa saa suu yahay haddaad inta halkaa u jeediyo aan saa ka dhigo qalinka haddaa saa ka dhigo yani center of gravity-giisi weli wuu jiraa dhulku saaran yahay haddaa saa uusu ka dhahona saa haddaan ka dhahona waxa weeyaan weli wuu jiraa macnaheedu waa maxay shayga kan waa neutral macnaheedu waa maxay waa circle weeyaan badanaa waxyaalaha goobada ah center of gravity-goodu waxa weeyaan markii laga hadlayo stability-ka markii laga hadlayo equilibrium-ka iyagu waa neutral equilibrium weey asxaabi marka waxa la isdhexdaa qaybood baa loo qeybay mid waxaan ku waa stable midna waa unstable midna waxa la yiraahdaa waa neutral hadaba asxaabi waxa filaya intaan inay isla fahanay yani muhiimadda ugu weyn casharkeena maanta waxa weeye inaynu isla garanno center of gravity waxa laga wado center of gravity waxaan ku raaday waa meesha xudunta uu xoogu shaygiisa uu ku soo dhacayo shay kasta center of gravity buu leeyahay yani center of gravity-gaasi annagoo ka dooleynaba waxaan stability baynu fiirinaa shaygan waa maxay ma istaagi karaa ma dhici karaa shaygan wuu istaagay macnaheedu waa maxay waa stable weeyaan center of gravity-giisa meesha saxda yaala shaygan macnaheedu waa maxay wuu dhacayaa macnaheedu waa maxay waa unstable macnaheedu waa maxay position-kiisi kuma soo laabanayo asxaabi hadda waxaan filayaa center of gravity-gana waxa weeyaan cidii u baahan xog inta ka sii baabaasan shay kastana markuu yahay shaygu regular qaab markuu leeyahay formulooyin bay leeyihiin inta cidii ka sii baabaasan ee raba inay sii baadhana wax weeye qaybta yani socialka waxa leeyahay internetka way ka baari karaan sababtoo waa maxay cilmigu hadda meel kasta uu yaala internetka ku jira salaadid cidii u sii baahan qawaacideeda formulooyinkeeda wax weeyaan way baari karaan sababtoo anaga waxaynu ka hadlaynaa waa maxay waa secondary level baynu ka hadlaynaa markana waa maxay ardayga secondary-gana waxa muhiim ah inuu yaqaano isagu war center of gravity-ga maxaa laga wadaa see intee qaybood loo qaybinaya laba qaybood baa loo qaybinaya shaygu hadduu yahay regular by formula formulooyinkoodana mid kasta gaar buu leeyahay haddii uusan lahayn irregularna waa by line center of gravity-gana waxaa ka soo hoos dhalanaya waxa la yiraahdo stability waa shaygu waa stable ba ma unstable ba mise waa neutral intaba waxay ka dhalanayaan center of gravity ka dhalanayaan hadaba asxaabi waxa filayaa inaynu intaan isla fahnay videogeena maanta intaasaan asxaabi kusoo gabagabaynaynaa intaynu ku kulmi doonaa asxaabi videokiisa xigo aynu ka hadli doono ciwaan weyn oo ah momentum iyo impulse yani waxaan shayga kan waa la qaban waaye maxaa loo qaban waaye baynu ka hadlaynaa hadda hadaba asxaabi intaas intaynu ku kulmi doono videogeenaas toddobaad waa anagoo isku duuban oo idin leh asxaabay isma dhaafno fi amaanillah